Assalaamu calaykum. Waan idin salaamay daawadayaal meel kastoo joogtaan. Waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena 5 qaacido oo muhiim u ah nolosheena. 5tan qaacido waa 5 qaacido oo inoo sheegay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Inteena bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad soo qabsato qalin iyo warqad, aadna ku qorato kuna dhajisto warqadda derbiga qolkaaga. Subax walbana aad isha mariso si ay ula qabsato maskaxdaada ayna kuugu noqoto dabeecad ama caado. Markana haddii aan bilowno qaacidooyinka 5 ah, waxaa ugu horeyso qaacidada koowaad: wardi bima qasamallahu laka takun aqna nas. Ku qanac wuxuu alle ku siiyey, waxaad noqonaysaa midka ugu qanacsan dadka. Imisaa waxba haysan haddana qani ah, imisaa wax haysata haddana faqiir ah. Qaninimadu ma aha maal badan, balse qaninimadu waa midda nafta qani laga yahay. Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay: man yastaqni yughnillahu wa man yastacfif yucafifullahu. Qofkii kaaftooma Allah kaafinayo, qofkii xumaha ka dhowrtoomana Allah dhowraayo. Sidaas si la mid ah, nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku duceysan jiray: allahumma laa caysha illaa cayshul aakhira. Allow nololi ma jirto nolosha aakhira ma ahane. qaacidada saddexaad: ittaqi maxaarima takun acbada naas. Ka dhowrso ama iska ilaali xaaraanta, waxaad noqonaysaa midka ugu cibaado ama caabudid badan dadke. Haddaba xaaraanta waxaa soo hoosgelayo dhammaan wuxuu alla xarimay oo ay ka mid yihiin beenta, xanta, dilka, sinada, iskudirka, kujeesjeeska aayadaha alle iyo dhammaan xumaanta. qaacidada saddexaad: walaa tukthiru dixka fa ina kathratu dixki tumiitu lqulub. habadin qosolka badan wuxuu dilaa qalbiyade. jaabir bnu samra allaha ka raali ahaadee wuxuu leeyahay: kaana rasuulullahi sallallahu calayhi wasallam dawiilu sumti qaliilu dixki. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid aamusnaan badan, qosolna yar. sidaa oo kale cabdullaahi binu xaarith allaha ka raali ahaadee wuxuu leeyahay: maa ra'aytu axadan akthara tabasuman min rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam. ma arag qofka dhoola cadayn badnaa nebiga sallallahu calayhi wasallam. waxaa muhiim ah inaan joojino qosolka badan, aanu ku bedelno dhoola cadaynta. qaacidada afraad: wa axib linnaasi maa tuxibu linafsika takun muslima. la jeclow dadka waxa aad la jeceshahay naftaada, waxaad noqonaysaa muslime. nabigeena wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam: laa yu'minu axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsihi. ma rumayn axadkiin ama midkiin ilaa uu kala jeclaado walaalkii waxa uu la jecel yahay naftiisa. dadku markay isjeclaanayaan iskuna soo hiloobayaan waa marka ayna ka dhexaynin isfaquuq iyo wax kala badsi. si loo helo mujtamac dhisan oo isku naxariista ayaa iimaankeena lagu xiray inaan la jeclaano waxa aan nafteena la jecelnahay walaalaheena kale ee muslimiinta ah. qaacidada shanaad: waxsin ilaa jaarika kun mu'mina. u samafal deriskaaga, waxaad noqonaysaa mu'mine. waxay ka mid tahay waajibaadka saaran qofka muslimka ah wanaajinta deriskiisa. aad ayuuna uga dardaarmay nebigeena deriska. deriskaaguna waa 3 qaybood midkood. mid kugu leh hal xaq, waana deriska aan muslimka ahayn oo kugu leh xaqa derisnimo. deris kugu leh 2 xaq oo ah deriska muslimka ah aan qaraabadaada ahayn oo kugu leh xaqa derisnimo iyo kan muslimnimo. iyo deris kugu leh 3 xaq, waa deriska muslimka ah qaraabadaadana ah. wuxuu kugu leeyahay xaqa derisnimo, xaqa muslimnimo iyo xaqa qaraabanimo. ka dadaal deriska, wuxuu ka mid yahay aakhiro waxyaabaha lagu gaaro manaasisha ama meelaha sare. halkaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. qoro oo xafid kuna dhaqan insha allah. waadna mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi